intaanay wada hadlin la qaban karo in horta uurka la isku xaaro in qalbiyada la isu nadiifiyo marka la isu nadiifiyo kadib la is hor fariisan karaa maxaa yeelay sidaan isu dilnay oo isu dhibnay oo isu cayrinay oo aan dulmi iyo madlamo u kala galnay ayaa rasuulkii salaatu wasalaamu calayhi saxaabadiisa iyo reer quraysh ay u kala galeen marka waxaa la yiri maxamedow haddaad doonaysid sallallahu alayhi wasallam inaad ummadan dhistid inaad reer quraysh ma ka xoreysid dadkii aad ciidan heshid xoog heshid quwad heshid ummadan aad isu keentid qarankiin inaad dhisataan waxay ku xiran tahay waa maxay cafis marka hore inaad dalbataan ay iscafisaan fa'fu canhum wastaghfir lahum washaawirhum fi al-amr kumanaan dadweynaha ayaa isku soo baxa muxaadarooyin oo sheekhu qabtay waxay abuurtay dareen dadku waxay muujiyeen siday u doonayaan ulma diinta kala hadasho qalbi furnaan ayay kaga jawaabeen guryahoodii ka soo baxeen bimujarrad magacaas cafi walaalka markii la shaaciyay idaylkood in ay iscafiyaan walaalahoodna cafiyaan guryahoodii ka soo baxeen waliba lacag lagu soo bixinin waxaana hubaa ku dhaaran karaa waxa soo bixiyay ilaah inuu yahay ilaahayna inuu arrinkan ila wado ma jirto qiyaas sax oo laga bixin karo kumanaan dadweyne isku soo baxay balse garoonka Banaadir Stadium waa buuxsamay dadka runtii anigu ma qiyaasi karo laakiin maamulku wuxuu leeyahay gudaha 40 kun oo qaada banaankana inta in la eega joogtay inta kale ee fadhiday ee guriyihii ka soo bixi waayay inta telefoon ilaa adduunku waa fududaaday telefoon la dara war meeshu waa sidee waxa isku imaanina meeshii meel laga galo ma laha leeyahay marka inta soo ruux marka waa stadium konis waa ogaa dadkan inaanu deeqaynin sidii sahal oo kale sababtoo ah qalbiyada dadkan arkay intii isoo waceysay iyo intii magaalada aan ku arkay doorka dambe xataa hadduu ilaahay yiraahdo kan maahane stadium muqdisho ayuu noqon doonaa mar alaal marka aan soo laabto laakiin cadad aan ilaahay un ogyahay aan xisaab lahayn ayaa meesha isugu yimid si qurux badanna way soo wada baxeen marka waxa ii muuqanayay saxansaxadii berisamaadka inay dib uga dhaban doonto duleedka dalka Soomaaliya olaadaha daba dheeraaday dagaalada sukeeye iyo dadka oo kala irdoobay ma isku soo dhaweyn kartaa cafi walaalka dadku way isdhaceen sida sheegaysid way isdulmeen way kala irdoobeen laakiin waxaad ogaataa waxa maanta aynu isku sameeynay ka badan in hore la isugu soo sameeyay waliba waagii uu quraankeena iyo diinteena ay soo degaysay inta waa la xalinay ta inay imanayso waa la ogaa laakiin arrinka hore loo xaliyay waxaana lagu xaliyay wax kale ma ahayn caafis ayaa lagu xaliyay hadii dil tahay caafis baa lagu xaliyay hadii sababtoo hadii caay tahay caafis hadii madalami wax la kala qaatay caafis sababtoo ah waxa la kala qaatay waxa u weyn waa adduunyo akhiran waa xaabo adduunyo waaye cafiskan waxa lagu helayaa waa nolol aakhiro waa jannaad waa waxaan indhuhu arag dhaguhu maqal qalbi bini aadan aan marnaba ku soo dhicin waaye Sheekh Maxamed Ibrahim Keyaw ayaa weydiiyay in dadka qaarkiisa u arkeen in gacansaar dhow la leeyahay madaxda dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihi waan la kulmay wallahi waa aan sheegay xaaba adduunyo idinma soo raadsanaa talaabadaan idin soo qaaday waa qaali hadalkaygu waa qaali adduunka oo dhan idinkoonan haysanin xataa haddaad isiisaanna ma gooyo waxaan wax ku raadsanaya oo hadalkayga aan kaga raadsanayna waa ilaahay siduu rasuulka wa risaalada u gaarsiiyey kufaartii Quraysheed 360 sano ma haysatay ayaan anigana walaalkiina ahay diintu waa nasiixa aan idinkugu imid xaq aad igu leedihiin ayaan ma aragtaa idin wadaa ma iga qaadanay waa gaarsiinaya haddii madaxdii ugu waaweyneed militariga saraakiisha ugu sareysay ilaahay siiyey booliiska saraakiisha ugu sareysay ciidamada iyo inta ka hooseysan maxaa ii diiday inaan u tago qorshe ugu jirtaa inaan tago qof walba oo madalama geystay in aan u tago waxa wacay rasuulka dhahay sallallahu alayhi wasallam unsur akhaaka zaliman aw madluman walaalka u gargaar hadii la dulmay iyo hadii uu wax dulmayba kan wax dulmayna qabo kan la dulmayna garab istaag taasaan ku socdaa aniga marka xaq baan u leeyahay madax iyo shacab in aan dul tago Abdul Qadir VOA Muqdisho